Assalaamu calaykum guys, aad baan idin salaamayaa. Maanta waxaan idin wadaa applicationka quruxda badan. Applicationkaas ayaynu wada dhisanaa. Ardaydii hore aan wada dhisnay iyagana review ha u noqoto. Inaguna waxaanu sameynaynaa wada dhisanaa waa applicationkan. Waxaan ku tusayaa waa last resultiga u dambeysay applicationka markay dhammaystirno siduu u ekaanayo. This house gonna look like. Wax kasta functionality kasta oo aad ku aragto application weyn uu leeyahay. Haddaad maqasho CRUD operationkii wuu leeyahay. CRUD operationka waxaa laga wadaa marka la leeyahay create, read, destroy, update, waxyaabahaas oo dhan sida applicationada waaweyn Facebook, Twitter aad ku aragto intaba wuu leeyahay. Loginkii, sign upkii buu leeyahay. This registration doonsan registraysa waa kan oo geliso magacaagii, emailkaagii, passwordkii, confirm passwordkii, choose haddaad doonsan upload garayso profile picture. Haddaad sign in tiraahdo daase kanaad sign in ka odhanaysaa kadib passwordkaagaad gelinaysaa. Markaad geliso sign in markaad tiraahdo wakaa you see okay Mohammed waa kaa qofkan Morgan Boston la weeye intaasoo followers buu haystaa. Intaas buu follow garaynaya xataa follow unfollowgii baa ku daray guys. Applicationada badan oo follow iyo unfollow followers aad la wada aragtay sida Twitter oo kale. Functionality-gaana sida loo implement gareeyo waan ku daray. Waad arkaysaa qof kasta postiisii, waxaad arkaysaa profile-kiisii iyo postuhu lahaa iyo wuxuu soo dhigay keliyaata. Dhinacana waa keliyaata wuxuu render garaynayaa post special people dad khaasa loogu talagalay. Applicationku waa kan functionality kasta waan ku daray. waxbaad post garayn karaysaa. Say posting using manistag haddaad tiraahdo you see by Yusuf YMC. haddaad doonto sawir baad soo qaadan kartaa. I don't know whatever. haddaad doonto adigu sawir dhigo. anigu keliyata baan idhi let's see successful added new boss. qofka soo dhigana waa more you see laakiin update-kii weeye waa inaad update garayn karta boostaada. waxaad soo dhigto waad update garayn kartaa. haddaad idhaahdo sawir ii soo qaad sawir soo qaato bas haddaan sawir soo qaato ama wada upload garan kartaa ama waxaad isticmaali kartaa URL-ka. marka let's take this one. Okay, that one guys, this one I love this picture. Okay, image-kaasaan soo qaatay waan idhi see post say soo update garayso waan update garaynaa postii. See that guys? Oh boy, isn't that beautiful? Adi maaha postan ku dhuftay wax comment gareeya male. haddaan anu comment yidhaahdo awesome guys. haddaan comment idhaahdo anigaa comment gareeyey. hadda aniga comment-kaygii baa ku dhacay waan delete garayn karaa. haddaan waan delete garayn karaa. laakiin qof kale hadduu sign in yidhaahdo oo imaka uu ka baxo unaan idho asa u galo qof kale lase nimcoo kalaaban idhi ase nimcaan u galay. marka ase nimco u galo Boston anigu ma delete garayn karo sababtoo dheh ownerkii ma ihi Boston. waad ku aragta application kasta qofka iskale ayuunbaa delete garaya waxaas oo boss kasta like imika delete halkan uu ka baxay. laakiin haddii aan nimco tago like kan nimca soo dhigtay 3 bilood ka hor way delete garayn kartaa sababtoo dheh iyadaa iskale. alright halkan delete male sababtoo dheh qofkii lahaa ma aha. laakiinse profile-ka qofka way tegi kartaa oo way eegi kartaa kadib follow baad odhan kartaa. haddii already aad follow garaysay you see automatically wuu update garaynaya. halkan unfollow baan idhi wuu ka jaraya you see that follow baan idhi
qofkaas hadda waan soo follow gareynayaa unfollow baan idhi automatically wuu ka jaraya guys. waad aragtaa waa kaas applicationku waa sidaa kaasay wada dhisanaa waa front end back end labadaba waad design garaynaysaa serverkii baad create garaynaysaa qaybtii back endigaad samaynaysaa waxaan ku dhahay it's a lot of work guys, it's a lot of work. It's not easy but you know if we will code this from scratch waxaanu ka bilaabanaa oo dhisanaa applicationka blank page aynu ka soo saarana applicationka dhan ee dhamayska tiran leh applicationka dhan ee dhamayska tiran leh 3 minutes ago post kasta waxay leedahay waqtigii la soo dhigay 4 months ago. This one is like what we call 3 days ago. See post kasta waxay leedahay waqtigii la soo dhigay application kasta wuu leeyahay waad ku aragtay waxaasoo dhan wayna implement garaynanaa guys ka warwarina oo mid waxaanu dhisanaa inagu waa front end to back end labadaba waynu dhisanaa applicationkeenu wuxuu leeyahay front end back end inagoo isticmaalana main stack MongoDB Express React JS waxyaabahaasoo dhan front endkii back endkii labadaba way implement garaynanaa okay oo waxaan ku dhahay waxaad samaynaysaa oo waxaan ku daranaa xataa dashboardkii shaqaalaha ku daranaa imika haddaan idhaahdo as an admin u galo anigu haddaan as admin u galo ee dashboardkay wuu isbedelayaa waa inaad barataa application kastood dhistaa inuu lahaado shaqaali ka shaqaynaa ciddii maamuli lahayd waa inaad yeelataa sababtoo dhan waa inaad ogaataa traffiga ku dhacaya applicationkaaga waa cidda isticmaalaysa waxay applicationkaaga ka wadaan trafikii waxaasoo dhan waa inaad ogaataa guys waxaasoo dhan waa inaad ogaataa we building this too waa inaad barataa sida loo dhiso application kasta dhistaa waa inuu lahaadaa shaqaalahaaga oo ku maamulaya adiga waa inaad dhistaa employee dashboard waa inaad traffiga maamulataa haddii aanad traffiga maamulanayda applicationka cid walba way iska soo gelaysaa see so waa inaad lahaataa applicationku ciddii maamul lahayd waayo as a admin functionality kasta post kasta waad bedeli kartaa waad update garayn kartaa waad delete garayn kartaa qof kasta sababtoo dhan admin baata applicationkaadaa iska leh taas waa mid kasta oo aad qof kasta soo dhigo trafigaaga waad samayn kartaa you see markaa waan samaynay guys ka warwarina waxaasoo dhan waan implement garaynanaa oo iska hubi buu ku leeyahay invalid info sababtoo dhan passwordkii baan qalday passwordka markaad qalado invalid buu ku odhanaya guys great great bill boys great bill applicationka dhan ayaynu wada implement garaynanaa so waa inaad soo diyaar garowdaa online baan kaaga dhigay inaan soo post gareeyaan doonaya maalin walba video ardadii hore u dhigatay aan wada dhisnay applicationka iyagana review ha u noqoto kaliya taa waxaan ku dhahay registrationkuna wuu socdaa ardada cusub haddii aad doonaysa aad ka muuqato waa inaad isregistraysaa oo haddaad doonayso aniga inaad personal ila soo xidhiidho waa inaad website-kayga booqataa this is my website this is my personal website guys aniga usedoair.com this is my personal website guys haddaad doonayso inaad isregistrayso galaasyada online mar walba way socdaan waana limited galaasyadaasi ardadii hore aan u wada dhisnay applicationkan iyagana waa as a review ha u noqoto haddii kale online waad isregistrayn kartaa ardayda cusubaad kusoo beeri kartaa see this is what we're building boys this is what we're building where's it soo diyaar garooba guys marka applicationkaasaan dhiganaa qaybtaasuu leeyahay waad baranaysaa sida loo create gareeyo application kasta from scratch guys adigoo isticmaalaya
coding, just coding guys, HTML, CSS idigoo design garaynaya applicationkii from scratch. wax kasta waa inaad barataa, waayo de wuxuu ku fiican yahay applicationkaas engineer markaad doonayso waa inaad wax kasta barataa sida loo create gareeyo as a creator, as a programmer. anigu inaan kugu train gareeyo oo aan kaa dhigo programming, that's my aim. So anigu waan ku barayaa si from scratch application kasta oo weyn loo dhiso, application kasta oo weyn oo ballaaran sida adigoo code garaynaya using waxaan ku oraya latest technology, with the latest technology guys. So we're building this one together from scratch. So get ready boys, get ready. aad buu ballaaran applicationku maaha wax yar, sababtoo dee waa qaybtii frontendka iyo backendka labadaba waa inaan samaynaa inagu, oon logica ku darnaa, functionality ku darnaa, wax kasta oo application weyn aad ku aragto waa inaan inagu samaynaa. So get ready, be ready boys, be ready. aad baan idin salaamayaa, khayr bay isku ognahay.